بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada cashar kale oo cusub oo muhiim ah dhageysta oo isku aragtay calool majiir dibiriyo dhuuso badan caloosha marku fadhida marna socoto markay socotana aad dhigaysid shuban aan badnayn oo wata wax candhuuf u eg oo jijiitamayo oo markay ka yimaadaan aad nafisaysid ciladan ma kugu kacdaa markaa walwalsan tahay ama fakar uu kula soo darso ciladan ma kugu soo laabataa dhowr jeerna gaas ahaan ma lagu daawiyay iyadoo wax isbedel aadan dareemin haddii aad tahay qofkaas casharkan adigoo kugu socda ka faa'iideyso lana wadaag bulshada magacaygu waa Dr. Mahdi waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End xanuunka astaamahaas kore leh waxaa loo yaqaanaa mindhicirrada kacsan afka qalaadna waxaa lagu dhahaa irritable bowel syndrome loona soo gaabiyo IBS afka carabigana waxaa lagu yiraahdaa qooloon casabi xanuunkan waa mid ku badan dunida wuxuuna ka mid yahay cudurrada aan dhaqso lagu baraarugin waxaana lagu gartaa kaliya in laga shaki baxo cudurrada kale ee aadka ugu eg sida gaas calooleedka caabuqa mindhicirrada bararka xiidmaha cilladaha xasaasiyadda caloosha ku dhaca sida lactose-ka iyo celiac maxaa keena cudurkan si xaqiiq ah looma ogo waxa keeno mindhicirrada kacsan laakiin waxaa la ogyahay in dhowr shay ay ka qayb qaataan maadaama mindhicirrada ay leeyihiin murqo aad u yaryar oo hawshoodu tahay in mindhicirrada ka caawiyaan siday isaga faarujin lahaayeen wixii ku jiro hawshaasoo afka qalaad lagu dhaho peristalsis murqahaas ayaa kacsan oo si xawli ah u shaqaynayo taasoo keenayso in caloosha aysan waxba ku hakanin mararka qaar xilliyada qaarna ay shaqada joojiyaan oo ay calooshu fadhiisato taasoo la isku arkayo saxaro adeeg waxyaabaha la arkay inay dhibsadaan dadka qaba ciladan waxaa ka mid ah shukulaatada basbaaska dufanka digirta caanaha kafeyga liinta kabajka cabitaanada la soo qasay oo gasacadaysan iyo daawooyinka qaar ka mid ah arrinta kale ee la xiriirinayo kacsanaanta mindhicirrada waa dareensidayaasha mindhicirrada oo sidii la rabay u shaqaynaynin taasoo keenayso in dheefshiidku khalkhal galo midda saddexaad waxaa lala xiriiriyaa dhibaato ka dhalatay caabuq ama infection aad u daran oo mindhicirrada horey u soo maray ama qofku in muddo ah joogteynayay qaadashada qallajiyayaasha taasoo keenayso isu dheelitirnaan bakteeriyada caabuqa keento iyo midda faa'iidada u leh dheefshiidka maxaa ka mid ah waxyaabaha kiciyo mindhicirrada maadaama cudurkan uu yahay mid raaga qofkana hayn kara sanooyin badan waxaa jira waxyaabo la isku waafaqsan yahay in xanuunka ay kiciyaan ama uga sii dari kara qofka qaba cudurkan waxaana ka mid ah 1 stresska dadka aad u walwala oo isku buuqa ama qaba xanuunka niyad jabka wuu ku badan yahay ciladan 2 sida aan horey u soo sheegayba dadka cunooyinka aan kor ku soo xusay iyagana ciladan waa lagu arkaa midda saddexaad waa isbedelada ku dhaca hormoonka khaasatan xilliga caadada waana waqtiga ugu badan ee xanuunkan dumarku isku arki karaan sidaa darteed xanuunkan wuxuu ku badan yahay dumarka markii ragga loo eego xanuunkan waxaa badanaa lagu arkaa dadka da'doodu ka yar tahay 45 sano sidoo kale qofkii qoyskiisa laga helay ciladan sidoo kale qofkii la nool xanuunada nafsiga sida diiqada walwalka iyo isku buuqa sida haweenta gurigeeda dhib ka haysto caruur iyagoo yar la soo farxumeeyay iyo wax kastoo saameyn kara dareenka qofka dhaawacna ku reebi kara calaamadaha mindhicirrada kacsan waxaa ka mid ah xanuun casiraad leh hawo caloosha ku dhex meeraysato dibiryo calool istaag shuban dareen in saxaro ku hayso adigoo hadda musqusha ka soo baxay casiraadda oo durbadiiba kaa joogsato markaad saxarooto axala soo raaca saxarada sidii candhuufta u eg dhiig yari kaadi badan oo la dareemo khaasatan habeenkii murqo xanuun caajis iyo daal aad u badan maadaama cudurkan uusan lahayn baaritaan u gooni ah oo lagu ogaan karo astaamihiisuna ay u ekaan karaan xanuunada caloosha ku dhaco khaasatan gaaska oo nasiib xumo bulshadeenu cudur walba ay isaga u saariso fadlan soo daawo labadii muuqaal ee aan horey uga soo hadlay cudurrada gaaska noocyadooda kala duwan iyo sida ku ogaan kartid nooca ku hayo iyo qaabka loola tacaalo sidee loo baaraa xanuunkan maadaama garashada xanuunkan badanaa lagu wareero waa in dhakhtarku kula yeeshaa waraysi aad u dheer iyadoo lagu weydiinayo astaamo badan oo u baahan in waraysiga lagu kala sooco kuwaasoo adiga ama qoyskaaga la xiriira kadibna wiisito in lagaaga sameeyo caloosha si looga shaki baxo xanuunada qaar kadib waraysigaas iyo baaritaankaas kadib waxaa lagu diri karaa baaritaano kooban oo lagu xaqiijinayo ama lagu beeninayo xanuunada uu dhakhtarka kaaga shakisan yahay baaritaanadaas waxay isugu jiri karaan dhiig saxaro iyo kombuyuutar caloosha ah ogow xanuunkan ma lahan baaritaan u gooni ah waana sababta badanaa si dhaqso ah loo garan looguna qaldo cudurro kale
Sidee loo daaweeyaa mindhicirrada kacsan? Waxaa laga yaabaa inay qaadato daaweyntiisu waqti dheer, laakiin waxaa muhiim ah: 1. Inaad ka fogaatid daawooyinka aan lagu qorin, cuntooyinka ku dhibayo, iyo walwalka xad dhaafka ah. 2. Inaad cuntid cunno fiber-ku ama buunshuhu ku badan yahay. Cuntooyinkaasi waxaa ka mid ah qamadiga buunshaha leh, digirta cagaaran, miraha, iyo khudradda fresh-ka ah. 3. In lagu qoro daawooyinka lagu xakameeyo cudurkan, kuwaasoo dhowr nooc ah, waxayna ku xiran tahay qaabka xanuunka kuu hayo. Waxaa laga yaabaa daawada adiga wax kuu tari weysay in qof kale ay wax u tarto. Sidaa darteed, baaritaanka iyo daaweynta cudurkan waxaa lagu saleeyaa qaabka lagu hayo. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa casharkeennii maanta. Wixii su'aalo ah, fadlan kusoo qor qaybta comments-ka ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.